Cabsidu waa dareen aynu inagu ku abuurno gudaheena nafaheena kaasoo sababa inaynu ku dhiiran weyno samaynta waxyaabaha qaar taasoo ugu dambayn inaga dhigta dad u xidhxidhan cabsida. Walaal, ma cabsi baa kaa hortaagan inaad isbeddel iyo horumar samayso? Cabsidu waxa ay dishaa riyada. Cabsidu waxa ay baabi'isaa rajada iyo farxadda. Cabsidu waxa ay qofka ka dhigtaa curyaan cagala oo iska fadhiya. Cabsidu waa waxa kaa hortaagan qofku inuu gaadho yoolkiisa. Cabsida badani qofka waxa ay u keentaa caafimaad darro. Dad badan waxay samayn lahaayeen ama ay gaadhi lahaayeen noloshooda waxay uga istaageen cabsi ah armaad gaadhi weydaa, armaad ku fashilantaa. Maxay dadku is odhan doonaan? Sidee dadku kuu arki doonaan? Waxaad u baahan tahay geesinimo aad ku raacdo waxa qalbigaaga iyo niyadaada ku jira oo khayr iyo horumar ku ah. Dadku waxay garanayaan waxaad dhab ahaantii rabto inaad noqoto ama aad samayso. Keliya cabsida uunbaa kaa celinaysa. Walaal, imise shay oo aad samayn lahayd ayay kaa reebtay ama ay kaa hor istaagtay ka cabsashada dadku. Imise horumar ayaa kuu suurtageli lahaa inaad gaadho balse aad uga istaagtay cabsi. Imise shay ayaad jeclaan lahayd inaad dadka uga faa'iidayso balse ay kaa reebtay cabsi. Dadku waxay kaa arkayaan hal aragti oo keliyata, xumaan ama wanaag. Waxay kaa aaminsanaanayaan ilaa inta ka hadhay noloshaada. Badanaa dadka waxa ku abuurantaa cabsi badan oo ah inay dadku u arkaan si xun isagoo haya wax fiican, laakiin dadka qaar uma muuqato wanaaggaasi ama waxaa fiican ee uu hayaa. Qofka aadamaha ahi waxa uu leeyahay laba shay oo kala ah gudo iyo dibad, ama cabsida gudaha iyo ta dibadda, ama cadaadiska gudaha iyo cadaadiska dibadda. Micnaha cadaadiska gudaha ama guduhu waa mid qofka gudihiisa ku jirta oo mararka qaar u diida waxyaabaha uu rabay ama uu ku fikiri jiray. Sidoo kalena waxa ku abuuranta cabsi. Waxa uu ku abuuraa ama uu ku dhaliyaa cabsi, halka uu dibaddu yahay muuqaalka ay dadku kaa aaminsan yihiin, waxa ay dadku kaa aaminsan yihiin, sida ay dadku ku arkaan, oo uu dib u dhigo waxqabadkii uu hayay. Walaal, muhiim maaha inaad aad iyo aad u cabsato. Sidii in lagu yidhi waxaad ku dhacday imtixaan, waxaad ku dhacday imtixaankii aakhiro. Ha niyad jabin, ha cabsanin, ha ka baqanin humaagyada yoolalka ahdaafta noloshaada.